waxaan ogeyn maayaradii hore in gawaari la ilaaliya shaqada ay ku tegi jireen laakiin saaka waxaa la arkay isaga oo tareenka raacaya subway loo yaqaano magaalada New York ama gobolka New York ba in isaga oo ilaaladiisa ay la socoto oo tareenkii soo raacay dadkii tareenka raacay iyo ku waliba goobta laga galo joogay oo security-ga ahay si aad ula yaabeen markii arkeen maayarka cusub ee magaalada New York oo subway-ga ama tareenkii raacay oo shaqada ku tagaya sida dadka caadiga ah ee degan magaalada New York ay sameeyaan waxaan ku ogay ninkan Zoran Kwame Mamdani in markii ololaha doorashada uu ku jiray in meel kasta uu booqday kuwa tagaasileeda ayuu booqday maqaayadaha ayuu tagay ninkan waa muslim waa 34 jir Uganda ayuu ku dhashay isagoo 5 sano jiro ayaa laga waday South Africa ayuu 2 sano joogay Mareykankana waxa uu yimid isagoo 7 jir ah markii ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu booqanayay masaajidda kaniisadaha goobaha Yahuudda ay leeyihiin maqaaxiyaha kala duwan meel kasta ayuu ugu tagayay dadka New York degan wuxuu yiri anigu waxaan maayar u ahay ama duq magaalo dadka New York degan diintay kala wadanayaan hawataan jinsiyadahay kala wadanayaanba ama madow ha aadaan ama cadaan ha ahaadaan marka arintii ayuu ka dhabeynaya marka sida hadda muuqata xitaa markuu shirarkiisa jaraa'id qabanayo goobaha banaana oo fagaaraha ayuu ku qabtaa inta badan hadda waxaan arki doonaa shir jaraa'id oo maanta qabtay sidoo kale waan idin la wadaagi doonaa oo xubin muhiim ah oo ku magacaabay markii shalay la dhaariyay marka wareegtooyin ayuu saxiixay wareegtooyinka uu saxiixay waxa kamid ah waxyaabaha uu ku ololeeyay waxa kamid ah maayarka magaalada New York in dhanka guryaha uu xiriir fara badan uu ka jiro guryuhuna ay qaali yihiin inuu wax ka qaban doono shalay markii la dhaariyay kadib waxa uu tagay dadka qaar ayuu guryihii ugu tagay sidaad arkaysaan gurigan ayuu kormeerayaa waxaad arkaysaan qaybta suulida oo lagu qubaysto sida ay tahay guriga saqafkiisa kore inay wasaq tahay dhulka inuu burbursan yahay intuu xitaa kada loobsado uu taabanayo marka waxa uu yiri waa in la ilaaliyaa xuquuqda dadka degan guryaha maxaa yeelay kira ay bixiyaan bil kasta hadii aysan bixinna guriga waa laga saaraya eviction ayaa lagu sameynaya marka wuxuu yiri dadka guryaha iska leh waa inay xuquuqda dadka guryaha degan ay ilaaliyaan oo ay ka dayactiraan guryo aan lagu noolaan karin inay lacag uga qaataan dadka waxa uu yiri waxa ay dawladda hoose ee magaalada New York ay aqbalayso ma aha If your landlord does not responsibly steward your home, city government will step in. We will make sure that 311 violations are resolved and we will hold slumlords to account for hazardous and dangerous threats to your well-being. marka labada wareegto oo shalay saxiixa waxa kamid ah inuu sameeyay guddi dib u eegis ku sameeya dhulka ay dawladda hoose leedahay iyo goobaha bannaan oo dawladda hoose ay leedahay kuwaasi si horumar loogu sameeyo oo loo dhiso by July bisha 7 ee sanadkan guddigaasi in ay u soo gudbiyaan warbixin in goobahaasi la dhisi karo iyo in kale waxa sidoo kale oo guddiga kale uu sameeyay ay tahay guddi ugu magac daray Speed Track Force oo guddiga dadajinta waxa uu yiri waxaan doonaynaa inaan meesha ka saarno caqabadaha ka hortaagan in la dhiso guryo oo hoos u dhigaya oo slow ka dhigaya in guryo la dhiso marka dad fara badan oo lacag leh ayaa waxa ay doonayaan in iyagu ay dhistaan marka waxa uu yiri waxaan doonaynaa in arrimahaas meesha aan ka saarno guryana la dhiso si ay dadka ay ugu filnaato marka maanta sidoo kale tareenka ayuu raacay waa kan isagoo tareenkii saaran dadkii salaamaya oo kaligii meel fariistay oo waraaqihiisa iyo waxyaabihii uu watay aqrinaya ilaa uu si toos ah xafiiskiisa u tagay tareenkaasi ayuu shaqada ku tagay marka maalin kasta ma ku tagi doonaa ma maanta oo kaliyaha laakiin sida muuqata ninkan waa nin aan bulshada iskala weynayn isla markaana meel kasta bulshada kula kulmaya bulshada dooratay xilligii ololaha doorashadana waan arkayna sida hadda idin sheegayba marka sidaas ayuu yiri maayarka magaalada New York haddana shaqadiisa toos ayuu u bilaabay sidoo kale maanta waxa nin muslima oo la yiraahdo Ali Najmi oo u magacaabay oo qareen dhinaca doorashooyinka xuquuqda madaniga ahna u dooda ayaa waxa uu ka dhigay in uu kala taliyo madax wax uga dhigay guddiga dhinaca maxkamadaha kala talinaya ama cadaaladda wixii ku salaysan dhan guddigaasi ayuu madax u noqon doona marka wuxuu yiri ninkan waa qareen dhinaca doorashooyinka muddo 10 sano ka badan ayaan garanayay sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay in hadda guddigaasi uu madax uga dhigayo This administration is investing in the civic fabric that holds our city together. And that same commitment to openness, participation, and rebuilding trust in our institutions guides how we approach every part of city government. That is why today I am also announcing that Ali Najmi will serve as chair of the Mayor's Advisory Committee on the Judiciary.
Under Ali's leadership, this committee will take on a more public and engaged role. sidoo kale taliyihii booliska Jessica Tish xilkeeda ayuu u daayay xubnahan kale oo idiin muuqdana sidoo kale waa uu magacaabay oo isaga la shaqayn doona marka hadda weli magacaabista iyo wareegtooyinka ayuu ku jira laakiin maanta ayaa markiisii ugu horeysay si toos ah xafiiska uu tagay tareenka ayuuna raacay oo waxa uu u muuqanayay in dadka New York sida maalin kasta shaqadooda ay ugu tagaan tareenadaasi in isaguna bal uu soo eego tareenada waxaan ognahay inay wasaq yihiin dad homeless ay joogaan xilliga roobabku ay da'aan ay biyo ay soo daayaan marka waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabaha uu ku ololeeyay inuu wax ka qaban doono ugu dambeyntii xilliga coronaviruska waa tii Minnesota hadda lacagtii Federal World Future lacaga fara badan la musuqmaasuqay marka wax dowladda federaalka ka tirsan waxa la yiraahdo oo Small Business Administration la yiraahdo jirto marka Small Business Administration kan waxa ay qaabilsan tahay in ganacsiyada yaryar lacaga deynaha la siiyo waana laga cafin karaa isla markaana waa ay soo celin karaan labaduba waa la sameyn karaa marka dad fara badan ayaa xilliga coronaviruska ka faa'iideystay xitaa waxaa jira Russia iyo China dad ku dhaqan oo kambaniye feega intay samaysteen lacaga ku qaatay marka hadda maamulka Trump waxa uu yiri ilaa iyo 6900 ama goobo ganacsi waxay ahaadaan dad lacaga qaatay oo 6900 oo goobood oo kala duwan ku qaatay lacag 400 milyan oo dollarna loo ogolaaday hadda waxa laga yaabaa lacagtaasi soo celiya in la yiraahdo marka business administration waxay leeyihiin musuqmaasuqa sidoo kale dhinacaasi waa uu ka jiraa gobolka Minnesota dad aan ba ganacsiyo lahayn oo aan maqaaxiyo lahayn isla markaana ayaa lacagahaasi dalbaday oo iska qaatay marka hadda baaritaan ayaa lagu sameynayaa waxa la leeyahay hore u cuna gadaal uma cune lacagtaasi soo celi in lagu yiraahdo ayaa laga yaabaa waraaq ordaysa ay ku timaado hadda sidoo kale business administration ka waxay gobolka Minnesota ka joojiyeen lacag dhan 5.5 milyan oo loogu talagalay marka waxa la yiri tii hore ayaan bal la ogeyn halka ay martay tanna hadda waa la idinka joojinaya marka guddiga la xisaabtanka ee Congress-ka ayaa hadda waxa ay dhageysi sameyn doonaan arbacada soo socota marka fasaxooda ay ka soo laabtaan waxa loo yeeray haweeneyda madaxda ka ah waaxda gobolka Minnesota u qaabilsan dhinaca qoysaska carruurta iyo waliba dhalinyarada oo la yiraahdo Tiki Brown isla markaana arrimaha daykeerada ayada ayaa mas'uul ka ahayd kormeerkooda iyo arrimahaas in la soo eego marka arbacada ayaa su'aalo la weydiin doonaa sidoo kalena waxa la ballamiyay gudoomiyaha gobolka sidoo kale waraaq ayaa loo diray isagana 10ka bisha labaad ee February soo socota ayaa gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo xiriiryaha guud Keith Ellison labadaba loo yeeray waxana wax laga weydiin doonaa arrimaha musuqmaasuqa iyo si qaldan loo isticmaalay lacagihii dowladda federaalku ay ku bixinaysay qayb barnaamijyo kala duwan oo gobolka Minnesota loogu talagalay dadka nugul ee loogu talagalay inay gaaraan marka waxa la leeyahay lacagihii dowladda federaalku ay bixinaysay meeshii loogu talagalay ma aysan gaarin sida darteed waa in gudoomiyaha gobolka ay ka jawaabaan iyo xiriiryaha guud ee gobolka Minnesota oo labaduba 10ka bisha February ayaa hadda ballan loo qabtay laakiin 7da bisha oo hadda arbacada soo socota 7da bisha January waxa su'aalo la weydiin doonaa haweeneyda madaxda ka ah qaybta gobolka Minnesota u qaabilsan in carruurta